cutubka 6 soo helidda meydadka. soo helidda meydadku waxay u baahan tahay nidaam taxaddar leh oo habaysan. musiibada kadib, helitaanka iyo soo saarista meydadka waxaa inta badan marka hore sameeya qoysaska kuwooda badbaaday, saaxiibada iyo jawaab bixiyayaal kale. tani waxay noqon kartaa hawl aad u khatar badan. caafimaadka iyo badqabka kuwa nool iyo samata bixinta iyo daryeelka kuwa badbaaday waa in ay had iyo jeer mudnaanta koowaad la siiyaa. si kastaba ha ahaatee, marka oggolaansho la bixiyo si loo galo goobta, soo helidda degdega ah oo wax ool ah ee meydadka ayaa muhiim ah. waxayna khubarada forensiga iyo kuwa loo oggol yahay hadhow u fududaynaysaa inay shaqadooda qabsadaan. marka hore, uqoondaynta sumadda meydka u gaarka ah waa inay ka dhacdaa goobta, kadibna sawirrada iyo xog ururintu waa inay sida ugu dhaqsaha badan uga dhacaan goob ku habboon. marka xiga, farsamada saxda ah ee qaadista meydka waa in la raaco, laga bilaabo gelinta bacaha meydka la geliyo iyadoo dhabarka hoos loo marinayo marka la soo helo, oo si ammaan ah oo xushmad leh loo qaado. ugu dambayn, meydadka la helay waa in lagu hayaa meel qabow oo ammaan ah. sidan ayaa meydka si taxaddar, sharaf iyo badbaado leh lagu soo heli karaa.